mudane mahdi maxamuud cali wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya ayaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u hortagay maanta akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka hay'adda maareynta masiibooyinka iyadoo mudanayaasha baarlamaankan ay wasiiru dowlaha weydiiyeen su'aalo la xiriira hay'addan sidoo kalena waxa ay u soo jeediyeen talooyin magaaladii oo dhan waxa qabsaday dad la yiraahdo barakacayaal marka meeshoodii lagu celiyana shaqayba noqoto way soo laabtaan aad iyo aad bayna magaaladii u fool xun tahay u nadaafad daran tahay maxaa tallaabooyin oo idin qorshaysan dadkaas si meeshoodii loogu celiyo maamulka xaqiisa gudoomiye ku-xigeen baan halka laga bartay gudoomiye ku-xigeen meeshaan waa hay'ad ballaaran wasaaradda hoos imanaysa ka weynta waana soo dhaweynaya in la dhiso laakiin waa inay leedahay board of directors hindis sharciyeedkan la soo jeediyay uu yahay mid aad simplistic ah mid yani la sahlay oo runtii aan substance badan lahayn wax badan oo nuxura ma laha hay'adan oo kale adduunyada sharciyadeedu awoodo badan baa ka dhex muuqdo hay'adda tan in loo baahan yahay shaki gelin maayo anigu wasaaradana wixii karaankeeda ayay soo qortay wixii dhammaystira xildhibaanada Soomaaliyeed iyo quburada caalamka iyo kuwa Soomaalida intaba waa la kaashanaynaa sharcigana waa la sameeynaa sida shuruucdii kale hore loo sameeyay ayaan loo sameyn doonaa insha Allah arrintanu waa hawl federaal sida hadda aanu arkayo waa wax dalka oo dhan xuseeyo oo saameeya ma la ogeysiiyay maamul goboleedyada wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane mahdi maxamuud cali oo jawaab ka bixinayay su'aalaha ay mudanayaasha baarlamaanku weydiiyeen ayaa si gaar ah uga hadlay caqabadaha hortaagan in hay'adda wax u qabato dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gobollada dalka qaarkood kuwaas oo ay saameeyeen masiibooyinka fatahaadaha iyo duufaanada waxaana uu xusay wasiiru dowlaha in caqabada ugu weyn ee hay'adda haysataa ay tahay iyadoo aanay sharci ahayn sidaas darteedna uu xildhibaanada uga codsanaya inay ansixiyaan الواحد قرن قبل البويتجسا كوه فرق بدل مسؤول كم حافظين في هالنسا مركي هادون عبورتو هذا وقلاتان ماري الله بحنا إنك أول شيء كجلسا ده كان بيرتسارن بيها لحظة مترو السوتجلا وحاي كقبان كرتون مركز شرعيا وقلاتان بيادون كبريد دونتا هذا بيجي الله اللي دونتا وحنا كقبان دونتا ودمينتي مضيان يعني مروي saddex arrimood baan rabaa inaan isaga jawaabno number 1 horta waxaan jecelahay idinka ayay gacantiina ku jirtaa wixii aad ku daraysaan iyo wixii aad ka bedelasaan inaad ogolaataan iyo inaad diidaan inaad sharciga ballaarisaan qodobo fara badan ku soo dartaan idinka ayaa awood leh awoodina isticmaala sidii aad u aragtaan inay u mudan tahay qaranka iyo ummadana ay ugu adeegayso sidoo kale maareeyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Abukaati Cabdullaahi Jimcaale oo isaguna ka hor hadlay xildhibaanada golaha shacabka ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha hay'addu qabato isagoo si gaar ah u xusay in hay'adda maareynta masiibooyinka gobollo ka tirsan dalkeena geysay oo u qaybisay gargaar kala duwan waxaad ogtihiin waxyaabihii la qabtay hadda jooro kale aad looga sheekeynay iyo Kismaayo kale iyo Hiiraan marar badan wax laga qabtay inta aan hay'adda laga joojin shaqada ka hor wax badan la qabtay Kismaayo markii ay dawladda gacanteeda ku dhigtay hay'addu horeyso tagtaanaga dad ay xaaji cabdi iyo kamidin xilbaana ah yaan runtii intaan hay'adii isugu yeernay oo ururinay maxuu ahay raashin oo ururinay daawo oo ururteen dooyin hay'addu haysay maxuu ahay qamadi badan oo hay'addu haysay laba doonyood oo min kuntan ah yaan rarnay oo aan ka dejinay Kismaayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane Jalaal Nuur Ikar oo kulankii baarlamaanka ee maanta shir gudoominayay ayaa gabagabadii kulanka ku baraarujiyay mudanayaasha baarlamaanka inay tabarucaad dhaqaale oo jeebkooda ah u sameeyaan dadka Soomaaliyeed ee ku kala dhaqan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo gobollo ka tirsan Puntland kuwaasi oo ay kala saameeyeen fatahaado iyo roobab watay duufaano xildhibaan qaranaatiin xaaladda wadanku maray oo jeedaan aafooyinka dhaxay Shabeellaha Dhexe Puntland waxaan soo jeedinayaa أنا عطسنايا إن تبرعات برلمانك حلبانا ذا شرفت له إني أرمهاس كجيستان ويا لبعضها لما سوي كرو إلا هن سعيد كان خلاص هذا نقول حري الله كان سحنا
waxaa manala siinaa bay leeyihiin marka waa inaan isku tashanaa inaan ka qayb qaadanaa arrimahaas ku saabsan wax ka qabashada aafooyin ka dhacay shabeellada dhexe iyo gobollo magaalooyin ka mid ah Puntland taasi waxa waaye codsi iyo soo jeedin waa xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulankooda ugu horeeya waxa yeelan doonaan maalinimada Sabtida ee fooda nagu soo haysa ayadoo ajandaha ugu horeeya ee baarlamaankana toddobaadka soo socda uu yahay gudagelida dooda ku saabsan mooshinka codka kalsooni kala noqoshada xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Saacid ayadoo mooshinkaasina ay saxiixeen 186 xildhibaan sida uu gudoonka baarlamaanka shaaciyay Cabdi Fataax Daar Jeete telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta golaha shacabka Muqdisho